السلام عليكم سو dhawaad walaalaha qaaliga YouTube channel ka naga socotaan oo qoyska qarniga markale isku soo noqod wanaagsan oo walaashin shamis walaalaha quruxda badan ee nagu xiran soo dhawaada walaalihii horeeto iyo walaalaha gadaal nooga soo biro dhamaantii waa mahadsantiin jazakallahu khayr aad leenahay waxaan rajeynayaa in caafimaad qabtiin alxamdulillah anagana waa caafimaad qabnaa aan ugu dagalno arrimaha rabnay inaan ka hadalno maalmaha dambe social media horta saa ka aragteen asxaabay waa waashay هذا مقلي جرتين سنة بوح عصبة معركنو سوشيال ميديا لحديث مركارت صالحا يوتيوب وكل مركارت سنة ضرب أبريد القصمية مع بوح عصبة الوصول درا سا عرفتين محاكورة هذا استعمال كسوشيال ميديا هنا ما له البوح عصبة كسوكرو أو يعني كبل شأهان مركزوا معلنا هاي وحا كسوكر لي هديرتان دتكي سوماليات أول دتك ما أركنو كنا ما أركنو أفريقيا عن كله أما محكورة هذا عاصمتها ودمدا عاصمته هذا يعني السوشيال ميديا قصيرة هذا لأن يرادي قبل هذا كنا ولا هذا هذا نقصوصا كنا السوشيال ميديا ساس ولا قوي كرعيل واركتين ما علم بوح بسبك سبحوي هل قبل أوحي كنت برنامج أو ما أركنو وأسعد ويرجلي ترى قبل الصومالي ما قبل كلمة وقرحنا هميت المقال قبل الصومالي ها وقرح بدنا هاي قبل وقت اللود وذي قبل مركي اللود قبل كلا تسوبودي وحيت رأضياش شير كذا بجعلها وأضياش استد جردا كير ما بك عياربا وأوجد ويل كلا حتنا شاكذا وحنا نقطة إسكوفان هي سامع كويل كرتا سير أضو دكتورين قف wuxuu sameeyaa marka qofkan wuxuu sameeyay wax ka duwan aan la imaado mid odayaal la imaato mid qurux la imaato wiil wax kale la yimid waxay noqotay sheekadii isugu faanay noqotay gurceel ayaan dhalinyaradaas ka soo bixeen sidii la sheegay waxa dhacday marka waxa jira wiil ku soo galay baraha bulshada waxa ahay wasiirka cadaaladda ee social media wiilkaas arrintaas oo uga hadlay qof uga hadashay ma jirto intaas oo qofood way ka soo hadashay maxaan ku yiraahdaa dhalinyarada gurceel ma arkino ka soo sameeyay barnaamijyada wiilkaas oo uga hadlay waa si qosol badan xigmadina ku jirto wiilkaas la soo daawanayna waa isku soo noqonayna waxaan leeyahay dhalinyarada reer gurceel magaalo joog xumo looma baahna dhagiina fura waxaan la hadlayaa wasiirka cadaaladda social media adduunku ma ahan gurceel kaliya waxaad u baahantiin in wax la idin sheego haddii aan wax la idin sheegin oo la idin hadlin waa iska sii wadeeyaan sheekada jabiskan iyo walwalaaqan looma baahna wala tamshi fil ardi marahan ardada dusheeda looma baahna in kibir lagu joogo iyo faajeertan looma baahna magaalo joog xumo looma baahna ka fariista social media iyo bulshada Soomaaliyeed adduunku gurceel kaliya ma ahan waxa ay muuqata dhalinyarada reer gurceel inay baraarujin u baahan yihiin oo isaba ogeyn muuqaalada laga soo duubayo in adduunka laga daawanayo waxa ay u haystaan marka ay hadlayaan in gurceel kaliya laga daawanayo adduunku oo dhammaan gurceel la noqday war adduunku gurceel kaliya ma aha war Soomaaliya gurceel kaliya ma aha magaalo joog xumo looma baahna war waxba in ka qaldane xaaladda wax ka bedela dhalinyaradu dib intay isugu laabataan qabiilka reer dameer qashay hal nin ayaa u soo jiiday magacaas oo dameer qashay ayagoo dhammaysan qalan magaalo joog xumo looma baahna ka fariista social media iyo bulshada Soomaaliyeed waxaan filayaa in ay la soo aragteen adinkoo qoslayn aan ka soo noqoteen wiilkaas wuxuu u hadlayaa si xigmadaysan on qofka ka xanaajinaynin si yacni runta loo taabanayana uu sheegayaa dadka wixii war wuxuu yiri muuqaaladiina yaa horta waxaa rabtaan buu yiri in la din baraarujiyo reer gurceel dhalinyarada gurceel ku nool waxay u baahan yihiin buu yiri in la baraarujiyo waxayba moodaan uu yiri gurceel kaliya in muuqaaladooda laga daawanayo war gurceel kaliya adduunku maaha war Soomaaliya gurceel kaliya maaha war adduunka oo dhan baa idinka daawanaya war muuqaaladiina adduunka oo dhan bay taabteen war maxaa idinka qaldan yaa adduunka faajartan laguma joogo wiil dusheeda faajartan waa markii ugu horreysay wiilkaas ka baqlay ma fahanteen wiilkaas ani waa wataa wasiirka cadaaladda social media waa wataa waa wiil runta taabta kaana qoslinaya qofkaas oo kale hadalkiisa ma ku caajisaysid qofna runta wuxuu u sheegaa si ma arkino qofka ul amal oo ugu garaacaya
xoogaa inuu qofka galana wuu sameynayaa qofna asagii xataa ku galaya dareemeyn oo ka qoslaysiinaya runtii uu taabanayo run ku sheegaya marka run ahaantii ama gurceel ha ahaato ama meel kale ha ahaato dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wax fiican in lagu soo caanbaxaa fiican hadda gabadha oo markii quruxda sheegatay waa naag isku karsoon waxna uma arko waa caadi laakiin gabadha tiroodaa shirkooda jecelahay gabadha sadood ka qabaan gabadhaas runta markii laga hadlo ilaahu ya caaw qalbigeeda ogaada runta markii laga hadlo hadii oo 80 jir loo keeno ma rabto oo wallahi inaysan rabin laakiin waxay kala gashay caanimadii waxay kala gashay saameyn yeelo waxay kala gashay ma arkino muuqaalkaaga meel dheer ha gaaro ha lagu soo qaaqaato magac yeelo intaas ay gabadhaas kala gashay marka inaad naftaada ka been sheegto waxaadan rabin aad ma arkino aad meel la soo istaagto waa wax laga qurxoon yahay waxa la jeclaan lahaay gabadhaas kulli waa gabar yar reerkooduna oo 80 jir ka soo doono waaga ku bariyay ilaayada raadsatay mid kale taas waxay dhiirigelinaysaa odayaasha ya odayaasha dhiirigelinaysaa Soomaali hadaan ahaan waxa dhaqan u leenahay odayaasha 80 jir 90 jir ayagoo ah gabdho 50 jir u guurnaa gabar marka aragti wiil ee 2 sano 3 sano ka weynta haday guursatana waa lagu mashquulaa marka Soomaalida gabdhaha aaday ma arkino ee godob uga galaan marka has ka soo saarna anagana maamo ya wiil 80 jir waxa ahay mar raba dhahayso 80 jir ha soo baxdo 80 jirkeena waxa xishooday xoogaa 50 jirka ya ha soo baxaan ma fahanteen marka wala reer Gurceel iskoor ay jabiyeen ya wax aan hore loo arkin oo hore loo maqlin la ka soo yeeray talo gobolka ku soo xigdoor ilaa Soomaali hadaan ahay in aan isku maseernaa naqaana in ma arkino in hiblaaye ma sameeysa anna waa sameynaya hebel aa sameeyay hiblaayena waa ka daba sameynaysa dhaqan naga tahay marka yaa isleedahay gobolka ku soo xigdoor horta Muqdisho waxyaabo badan laga arkay ya Muqdisho waxyaabo badan laga arkay Gurceel waa aragnay talo xagee ku soo xigdoona hadana marka social media ayaanta wuxuu noqday waxyaabo qosla oo la yaab loo noqday kale waxa ay ugu yaabka badneed social media marka inta fiirsana aan ka arkay Hargeyso gabar lagu aroosay oo isla hoolka arooska ayadoo loo sii wada la furay gabadha tiri sadohda ay lama soo kori karta gaari gooniha raacdo wiilkiin oo meesha ku dalaaqay war waxaan ku iri waa iga badiyeen ya dadkeen dad funny ah madax adeega ya gacana loo taagay marka wax horta halkaan la soo galiyo waa wax waligood ku jiraayo kaana shaqo si dhala waa fiirsadoona marka waxa fiican wax fiican inay naga baxaan insha Allah oo ma arkino bari nagu soo noqonaynin oo bari dhibaato noo yeeleenin oo ma arkino anaga ahaan sharafteena aan ma arkino يعني bari saameynaynin hadii Ilaahay raali ka noqdo naftan beenta la qabay hadii la dhintaba inay wax fiican ka haraan way fiican tahay marka insha Allah dadka ma arkino aan qotiin kaliya wax u sameeynaayo walba wax aan bari ku soo noqonin ha sameeyaan waxa rajeenaya wax aan ku soo noqonin in aan sameeyno wax halkaas soo gal waligood ma baxayaan ayanta dambe social media si qaldana u isticmaalona kolay ma ogi qowmiyadaha kale tarin nala qabaan laakiin anaga waxaan celinayaa mar walba oo wax qaldan hadaan sameeyno xataa la yaabka in noola yeelanayso waxa waa islaamnimada ma sha Allah dad islaam hadaan nahay yani waxaan looga bartay inaan wax fiican aan ku gudbino social media xataa dad isticmaaleyno si marka dadka muslimiinta ay markay noo arkaan ay uga helaan wixii marka insha Allah Ilaahay xaqana waafajiyo waxyaabaha la yaabka leh oo ma arkino iska daba imaanayana arjinayna inaan ka waantoona hada Soomaali nahay oo wax fiican ku bedelano muuqaalka inta ku soo gaarto waa mahadsantahay muuqaal mid inta ku kulmeeno waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh